aniga raggiina aan dibadda jira waxaad iga soo gaarsiin kartaa biri iyo maanta iga soo gaarsiiya sababtoo ah wallahi 200 ay ugu jirtay khadaadi hadda iga ninkii soo wacaniga saacadihii u dambeeyay waxaa baraha bulshada ee Soomaalida qabsaday cod si sir ah looga duubay Suldaan Hooley codkaasi oo group isagu ku duubay ayaa si khaldan u baxay Suldaan Hooley ayaa ku dhawaaqay oo sheegay in lacag $3,300 Mareykanka oo shirkadda Hormuud siisay oo uu Hargeysa la yimi shaxaad lagaga laastay sida waxa uu ku sheegay cod la helay oo uu duubay oo dad group ku jira oo qurbaha jooga uu duubay haddaba codkaasi ayaanu idin haynaa hayeeshee daawada intayna barnaamijka u gudagelin hadda channelka Highlights Media ku cusubtaana subscribe saar muuqaalkana like garee ku soo dhawaada barnaamijka Suldaan Hooley ayaa sheegay in lacag $3,300 Mareykanka oo shirkadda Hormuud siisay oo uu Hargeysa la yimi shaxaad lagaga laastay sidan waxa uu ka sheegay cod la helay oo uu u duubay dad group ku jira oo ku nool qurbaha Suldaan Hooley oo Somaliland ku sugan ayaa isagoo cod u duubaya group qurba joog beel uu samaystay oo Soomaali la dhaho ayaa aad uga cawday dhaqaale xumo ku haysata gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kadib markii shaxaad lagu laastay wuxuuna yiri culayska ay haystaa waa daqiiqad kasta lacag ayaa la weydiinaya qof kasta $10 ilaa $20 ayaan u diraa odayaasha raggiina dibadda jooga waxaan idinka codsanayaa ilaa berri wixii la soo gaara wallahi $200 Mareykanka ayaa caaway hadhay lacagtii Hormuud isiisay waa iga dhamaatay ayuu yiri haddaba waa kan codka Hooley uu groupkaasi qurba joogta u badan uu duubay ee dhala yar daaw shaqay maraysa iyo aniga horta markaan runta ku sheego lacag 10,000 ka badan aniga ku galay waxa xamar aad arkayso fankaas ana bixinayay marmar gabdho xoogaa iga bixinay wallahi aniga hadda meeshan waxa la soo galay $3,300 shirkadda Hormuud ii soo dirtay hadda $200 kaysa waa odayaasha dadkina wax la soo dawladda Somaliland hadda booqashadeeda ku fargareynaysa kulay sugotina waa laakiin wax si afkayga maan dadkii la socdo waa dad dhalinyaro waa dad xaasasa waxa soo dhan dabaray marka jaaladiina intaas warsataan Suudaanka laga shaqariyaa culayska ay haysta wuxuu yahay saacad walba lacag laga baahay odayaashii war ducada noo soo dir war Turkiya midaysa war maanta waa ku kala dhacday adduunkana mas'uuliyadda lagu sheego waa inaad gacan furan tahay oo wax dhiibto wax laga helo cod inaad leedahay gees inaad tahay gacan furanta la rabaa soo aniga raggiina aan dibadda jira waxaad iga soo gaarsiin kartaa biri iyo maanta iga soo gaarsiiya sababtoo ah wallahi 200 ay ugu jirtay khadaadi hadda iga ninkii soo wacaniga oo mas'uul ah oo odaya 10kaas ku 4 mid 20 ku 4 ka badan ma bixiyaba marka dadku marka hadii markaan imaanayaan hadda waa la soo dhaweynaa hoteeladii weyneed xamra hotel lagu qabtay oo taliyaashii ciidamada wixii dhan ay soo dhaweynay marka khayr Allah ku siiyaa la xilqaamo Suudaanka dad yaa wax loogu darin lambarkayga waa haysataan magacayga waa haysataan حضرت أكون كي قاعد يصدرها فلله الحمد وكاس وش أصل قصري والله إني جامعة دودي بربران العيتو ذا كبحي هندي وحكبرتان أن كل شيء بقول ما يسوى صدري شركي مركي أضيافي كيا برجدري كيا بقى صوب بحي ألف عقلي مريسا يو أنا يارت مركان رنتو كوشيو lacag 10,000 ka badan aniga ku galay waxa xamar aad arkayso fankaas ana bixinayay marmar gabdho xoogaa iga bixinay wallahi aniga hadda meeshan waxa la soo galay $3,300 shirkadda Hormuud ii soo dirtay hadda $200 kaysa waa odayaasha dadkina wax la soo dawladda Somaliland hadda booqashadeeda ku fargareynaysa kulay sugotina waa laakiin wax si afkayga maan dadkii la socdo waa dad dhalinyaro waa dad xaasasa waxa soo dhan dabaray marka jaaladiina intaas warsataan Suudaanka laga shaqariyaa culayska ay haysta wuxuu yahay saacad walba lacag laga baahay odayaashii war ducada noo soo dir war Turkiya midaysa war maanta waa ku kala dhacday adduunkana mas'uuliyadda lagu sheego waa inaad gacan furan tahay oo wax dhiibto wax laga helo cod inaad leedahay gees inaad tahay gacan furanta la rabaa soo aniga raggiina aan dibadda jira waxaad iga soo gaarsiin kartaa biri iyo maanta iga soo gaarsiiya sababtoo ah wallahi 200 ay ugu jirtay khadaadi hadda iga ninkii soo wacaniga oo mas'uul ah oo odaya 10kaas ku 4 mid 20 ku 4 ka badan ma bixiyaba
marka dadku marka hadii markaan imaanayana hada waa la soo dhaweynaa hoteeladii weynida xamra hotel lagu qabtay oo taliyaashii ciidamada wixii dhan ay soo dhaweynay marka khayr Allah ku siiya la xilqaamo suldaanka dad ya wax loogu darin lambarkayga waa haysataan magacayga waa haysataan hadarta akoonkayga hadii soo diraa fariila alxamdu waa ka soo shaqo la qabsanay wallahi ilmeyga jaamacadoodii barbaran lacagtooda ka bixiyay hindiya wax ka bartaan aan ku dhiishan boqol meeshaas uga diray shirkii markii odayaashii kii habargidri kii abgaal soo baxeen. Assalaamu calaykum dhammaantiin walaalaha Soomaaliyeed dhammaan dadka hamiga sare leh ee horumarka jecel waxaan jecelahay inaan la wadaago fursad ganacsi oo ay ka faa'iideysan karaan gaar ahaan dadka dhaqaale aad u yar haysta. Ma doonaysaa adigoo gurigaaga jooga inaad iibiso badeecooyinka shirkadda afraad ee ugu weyn waddankaas Mareykanka? Ma tahay shaqaale laga rabo masruuf, kira guri, fee waxbarasho iyo qarashaad kale oo warwar iyo dhibaato kugu haya? Fadlan shaqo ka bilow kambanigan oo la shaqee kambaniga afraad ee ugu weyn waddankaas Mareykanka. Iibi badeecooyinka shirkaddani soo saarto. Managerada guud ee shirkaddan u qaabilsan qowmiyadda Soomaalida ayaa fudaydisay in kambanigan ay ka shaqeeyaan Soomaalida qurbaha iyo kuwa dalkoodii hooyo jooga. Manager Sacdiye Xirsi ayaa sanadkan 6 bilood ee soo socda u qoondaysay inay si toos ah u diiwaan geliso oo uga shaqeeyaan kambanigan cadad gaaraya 600 oo qof oo ku biiri doona shaqaalihii sanadkii hore ay diiwaan gelisay manageradu. Haddaba daawade sidee uga shaqo bilaabaysaa kambanigan? Kow marka hore waa inay kaa go'an tahay inaad shaqo tag tahay. Waa inaad tababarada ay manageradu kuu qabanayso xilligeeda aad uga qayb gasho si lagu baro qaabka aad u shaqayn lahayd. Waana inaad tahay qof sumcad iyo maamuus ku dhex leh bulshadiisa iibin kara productyada iyo badeecooyinka shirkaddani soo saarto. Waana inaad qaadato talooyinka iyo macluumaadka ama sharciyada shirkaddani. Sacdiye Xirsi ah hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka ahna managerada u qaabilsan qaybta Soomaalida ayaa kaa caawin doonta wixii macluumaad ah iyadoo afkaaga hooyo kugu baraysa kuna tusinaysa sidaad u shaqayn lahayd. Waana Sacdiyo oo kugu xidhaysa tiim kula shaqeeya oo kula wada shaqada kuwaas aad isku goob joogtaan ama aad kala wadan joogtaan ama kala magaalo intaba. Haddaba daawade si aad u hesho macluumaad dheeraad ah fadlan wac nambarkan WhatsApp ee shashada kugu qoran adigoo marka hore fariin cod ama qoraal ah u diraya managerada oo uga warbixisay bulshada Soomaalida qaabka u shaqeynayaan iyo sida u diiwaan gelinayso iyo waliba waxyaabaha ay ku gacan qabanayso. waa tan managerada oo fariin cod ah u soo dirtay qaybta warqabadka Helais Media. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta leh Soomaaliyeed meel walba aad ku sugan tihiin waa walaashin Sacdiye Xirsi oo idin dhahaysa ku noolaada nabadgelyo iyo caafimaad intaba. bacda salaan waxaan maanta rabaa inaan isla eegno fursad ganacsi oo aniga ii anfacday adigana ku anfici doonta walaalo badan oo Soomaaliyeedna noloshoodii wax badan ka bedeshay oo aniga aan ka mid ahay. intayna horta u guda gelin fursadda ganacsi waxaan rabaa inaan isla eegno waxaa jira dad badan oo jecel in ay business bilaabaan qaarkoodna ayba bilaabeen business. in qaybta bilowday businesska waxa laga yaabaa businesskooda inay ku guuleysan waayeen. waxaan dhihi karaa laba siyaabo ayaa ka mid ah siyaabahay ugu guuleysan waayeen. kow waxaa ka mid ah in ay meesha ay ka fureen aan ahayn meel ku habboon businesska. midda labaad oo ah alaabta iyo waxyaabaha ay iibinayaan aan ahayn waxyaabo suuqa iyo cid walba u baahan tahay oo suuqa leh. waxyaabo aan suuqa ku soconaynin ayaa laga yaabaa oo qof walba aan u baahnayn ayaa dhici karta inuu ahaa. waxaa kaloo laga yaabaa walaalo badan oo Soomaaliyeed oo jecel inay shaqaystaan oo business furtaan laakiin haddana cabsi ku jirto. laga yaabo inay isleeyihiin oo ka cabsanayaan lacagta ay ku bilaabi doonaan investment inay geliyaan business lacag badan inay ku furaan taasoo keeni karta inay dib oga dhigtaan businesska ay bilaabi lahaayeen. haddaba aniga Sacdiye Xirsi ah oo maanta adiga kula hadlaya waxaan ku hayaa business ka duwan waxyaabahaas oo dhan. business aan kaaga baahnayn
inaad lacag badan investment geliso ood lacag badan ku bilowdo business aan kaaga baahnayn inaad meel u furto oo meel intaad u furto aad qarash isgeliso business aan kaaga baahnayn inaad waqti badan inaad geliso businesskan aan hadda aniga kuu hayo oo kuu soo bandhigayo waqti badan kaagama baahno waxaad ka shaqaysan kartaa businesskan adigoo shaqadaada haysto waxaad ka shaqaysan kartaa businesskan adigoo gurigaaga iyo familkaaga la jooga oo gurigaaga jooga waxaad ka shaqaysan kartaa businesskan aan kuu soo bandhigayo adigoo waxbarashadaadii wata oo arday ah oo waxbarashadaadii ku jira haddaba faahfaahin intaa dheeraad ah haddii aad u baahan tahay faahfaahin intaa ka dheeraad haddaa u baahan tahay businesska sida looga faa'iideysto waxyaabaha aad ka heli doonto sida oga ganacsan karto intaan warbixin ka dheeraada si aad u hesho fadlan igala soo xiriir telefoonka shaashada ku qoran ama ku soo dhufo linkiga descriptionka yaala haddii ilaahay idinka ka dhigo